علمي هذه عيال على هذا سوما وأيش هو عيال حقيقة وجوغان مر أنا جماعة إيش تقول وين أو سوماليا مثلا أو سودان محارة تحكم مسك إمارة تذكر تحكم إسرائيل أيدنا وكل جوكتا بدل هو يدي لا تشوفه هو يدي هو كارتن هو يدي اسمه صفنا cilmi oo aad wada garanaysaan isla markaana ah tiktoker ayaa oohin afka furtay kadib markii uu ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay noloshiisa cilmi oo wareysi bixinayay isla markaana la hadlay mid ka mid ah dadka aadka u isticmaala baraha bulshada ayaa sheegay in noloshiisa dad badan ay ka xun yihiin isla markaana ay dhibaatooyin fara badan u geysteen isagoona sheegay inay jiraan dad markaasi ee propaganda iyo been abuur ka faafinaya oo ku tilmaamaya waxa uusan ahayn cilmi waxa uu sheegay inuu yahay nin rag laakiin uusan ahayn qoomulud ama waxa loo isticmaalo ereyga qaniis cilmi ayaa maalmihii ugu dambeeyay ee tiktok caanka ah isagoona lagu arkay live ka soo galaya oo waliba la tartamaya dad markaasi social media caanka ah haddaba baabajiye ayaa dhawaan sheegay in hadda wixii ka dambeeyay uusan diyaar u ahayn inuu la tartamo cilmi maadaama uu yahay aabba Soomaaliyeed ilmana ay u joogaan dad badan ayaan arrimahaasi ka soo falceliyeen oo ay ku tilmaameen markii hore uu la tartamayay muxuu uga hadli waayay haddii uu joojiyay maxaa uu si hoos ula hadli waayay cilmi uu u dhihi waayay isbedel taasi ayaa keentay in dagaalka hadda ka socda TikTok iyo guud ahaanba YouTube-ka aad u sii kululaato cilmi ayaa sheegay in ay jiraan dad markaasi dacaayada ka fidinaya oo uu ku tilmaamay inay yihiin dad markaasi wax magarata ah oo views ku raadinaya ka been abuurida ama ka sheegista waxa uusan ahayn laakiin waxa uu yiri wax kastoo liigu tilmaamo aniga ma noqonayay haddaba saaxiibayaal cilmi ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinka faraha badan ee noloshiisa loo geystay isagoona sheegay in ay jiraan dad ka xun isla markaana dhibaatooyin fara badan u geysta noloshiisa cilmi waxa uu sheegay in maalin kasta uu la kulmo dhibaatooyin fara badan haday tahay dhinaca telefoon oo handadaada iyo haday tahayba dhinaca markaasi social media marka lagu jiro dadka ku tilmaamaya waxa uusan ahayn dad badan oo caan ah oo waliba sumcad ku dhaxlay bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa cilmi la tartama laakiin anaga hadda dhihi meeno qoomuluud waay iyo ma ahane wax kasta Allah ayaa inaga ogeey laakiin muhiimadu waxay tahay inaan idin soo gudbino waxyaabaha markaasi jira ee xaqiiqda ku saleysan ee baraha bulshada ku soo kordha baraha bulshadu waa bad hadba waa meeshii laga galay inkastoo maalmihii ugu dambeysay ay noqotay mid markaasi faraha ka sii bixaysa oo ah meesha kaliya loogu talagalay in dadku wax ka faa'iidanaya hadda noqonaysa meel maalin kasta lagu soo bandhigo ama lagu soo gudbiyo dacaayado dagaal iyo waliba heblaaya saastiri hebel baasaastiri iyo sheeko lamid ah haddaba saaxiibayaal idinkuna waa idinka rajaynaynaa inaad u dulqaadataan waxyaabaha baraha bulshada ka socda oo noqotay maalmihii ugu dambeysay mid markaasi la yaab ku noqotay dadka daawada ama ku tixanba social media cilmi ayaa murugo iyo oohinba afka jabsaday kadib markii uu ka hadlay noloshiisa wixii soo maray isagoona sheegay in hadda uu yahay cilmi laakiin mar waliba uu goconayo xusuusihii noloshiisa uu soo maray saaxiibayaal yaan hadal badan idinku daalinne nala daawada waxaan ku weydiinaa cilmi adiga ciyaal aan leedahay Soomaa waa ii jooga ciyaal xagee ku joogaan marka أنا جماعة إيش تقول وين أو سوماليا مثلا أو سودان محارة تحكم مسك إمارة تذكر تحكم إسرائيل أيدنا وكل جوكتا بدل هو يدي لا تشوفه هو يدي هو كارتن هو يدي اسمه صفنا waa kala tagtay marka Mareykan miyuu joogtaa iyada ma yaqaan joogtaa kale haye laba kalena waa la sheegay umaleynaa laba cadaan waa darweeji waa labada hooyadooda haysata ما شاء الله ما شاء الله نيو horta aad baan kuugu mahad celinayaa warbixintaas aad siisay niyo waxa weeye horta qalad kugu dhacaa dadka bini aadanka waxyaabaha sida aad u hadashay ama
barnaamijkii aa ka hadlaysay anigu waxaan u fahmayay inta badan inuu shactire yahay baan u fahmayay aad iyo aad baana maaragtay waxaan ku xirnaa tiktokgaaga dadka ku daawada baana ka mid ahaa laakiin barnaamijkan hadda dhacay oo cayda ah oo ay nimanka youtuberada ahi ay sameeyeen baabajayna lagugu diray waxaan isleeyahay kolba waa wax iska bini aadanka iyo suuq ciriirsi iyo wax soo noocaasa dhici kara inuu yahay laakiin inaa iska cafisidooda iska badaysid adiguna hadda dabcan waraysigii markaan dhegaysanayay ninka la yiraahdo Amore haddana qaldanayn waxa ku jira inaa cafisay soo maahayn waaxas aan kullugood cafis baa waa wada cafis qofa caloosha u qaade mala kullugood waa wada cafis waa dad walaalahooda waa dad Soomaaliyeed anaga waxba uma qabo aad iyo aad niyo ma cafiskaasina waa fiican yahay bini aadankana waxa weeye wax walba way ku dhacaan adiga marka waxaad samaysaa hadda xagee Mareykanka joogtaa أنا ما يأكل حتى جوا ميل وضعها أنا جوز ميل وضعها جوا waxay ku fiicnaan lahayd dhinaca meelaha Soomaalidu ku badan tahay inaad timaadido Soomaalida soo dhex gashido hadda iyo dhinaca diintana waxbarashada aad u maaragtay aad u wanaagsanaan lahayd ma garata ما ساسة إيشنا قفنا واحد أو معلوم والبو محل هاي الصومالي أو وذاك أو قرآن كإمبارح ما شاء الله واجوانين أو سنتي أحد القرآن كإمبارح ما شاء الله هذا قرآن كبرتيد ومهم ويا آد بمهم وده and waxaan kale marka aad leedahay waxba igu jira shactiraad uga jeedaa Soomaa waxaan la socdaa kale waxaan la socdaa hay ma fahant haye waxaan la socdaa kaway wax kale aan kaway malaha waa gartay marka niyo aad baan kuugu mahadcelinayaa cilmiyo wallahi waa ka naxay muuqaalkaaga markaan arkay runtii aad baan uga murugooday waana dhibsaday markii aad hooyaa dhigtay iyo lahayd marka dhinaca salaada hadda say isku tihiin ilaa waxa way qofka bini aadanka ah wehelka ugu weyn uu haysta waa salaada dhinaca salaada say isku tihiin salaada waa maxaa shaqadeedu waa subax mar walba subaxan soo kaca salaada waa taaniga ma sha Allah tabarakallah ka waran kulbada naag cadaana marka qabtid oo jawigu waagaas si kale ah laakiin hadda kaligaaba hadda aniga wixii dhanba wallahi waan soo baxay hadda oo Soomaalida soo galay wallahi deema ku sheegay Soomaalida soo galay waxaan hays iyo waxaan arkay iyo wax fiican iyo wax wanaagsan because mudii hore Soomaalida kuma joogin marka arkaysa wadaadyaal oo diin firinaayo dad Qur'aan aqrinaayo dad Soomaali mudii arkay wallahi bilaa wixii hore ku jiray dhan waan ka baxay ما شاء الله تبارك الله ما هذا سوماد أرق قلد يربع دعي بابتشي أرنتيسا حقيقة كتمي سومالي ذو السيدة وهو ذا قرع عنتي سوماد أرق لقوه لي واحد سومال بدل وله يبني إلى سياسية واحد أنا هلكا واحد كدري ميسا ذاتك السومالي ذا هاي إني هين داد ماركتي وناكسن oo xagga diinta dad iska qalqalad iyo waxyaabo ku jiraan laakiin inta badan dad wanaaga jecel xumaanta aan jeclayn qof walaala in la dulmiyo aan raali ka ahayn iyaan halka ka dareemaysaa marka alaana ka soo guur oo insha Allah taala bal dhinacaas Minneapolis oo kale ama dhinacan kaleeto oo Ohio oo kaleeto bal dhinacyada Soomaalidu ku badan tahay inaad timaadid oo dhinaca u soo guurtid isku day Soomaalidu way soo urursataayo marba meeshii Soomaali joogay isugu yimaadaan hadda anigu Sweden baan joogayo meelaan Soomaali joogin habeen kuma noolaan karo ma garad wallahi inta waa insha Allah ilaahay khayr si meesha iyo masaajiyashan ku dhawya oo maxal hayeen Qur'aan ka badanaysa mafad marka insha Allah sameeyna sonka dambe ila inta ka guuray anaga aan jeclaa oo dhinacaas u guuray hadii TikTok-gana ha ka maqnaan ma aqaande maalmahan TikTok-ga ilmi ku qoran yahay Soomaaliyeed ilmi Ismaan Maxamuud
laakiin wax maad soo dhigin maya waxba ma soo dhigo maanta wax soo dhigo waa codkaa kaxeen haa waa arkay muuqaalkaas waxaan isiri ma miyay kugu haystaan maya anigaas waxaan u duuma igu haystaan haye marka wehel buu kuu yahay bulshada Soomaaliyeed oo dhan baa kaala socota insha Allah ha ka dhex bixin waxay la mid tahay dad Soomaali oo dhan la joogay la mid tahay ma garatay insha Allah wala anigu waan ku farxay Soomaalida waxa aan waa ku shaqaysta ahay saan u shaqaysana inta waqtiga ka Soomaaliya san ku qaataa ma faham intii gaalada iyo dadka dhexgalay lahayd because meesha deganahay ma jeclay inaan gaalada iyo dadka dhexgalo ma faham saaxiibayaal waa daawateen haddii aad nagu cusubtiina subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idii soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddii aad horey inoola joogteena madaxaad inoo saarantii saaxiibayaal dhaliil ammaan bogaadin taliyo tusaale haddii aad inoo haysaana qaybta commentiina ugu reeb waan idin aqrin doonaa